cusbitaalkeenu waxa weeyaan maanta wuxuu marayaa sida cusbitaalada kaleba ay u yihiin maanta oo diyadoodu ay kor u kacday mustawa aad u wanaagsan buu marayaa mustawaha waxa lagu qiyaasaa waxa la yiraahdo indicatorku waa qiyaas marka waxa la eegaa cusbitaalku qalabka uu leeyahay waxa kale oo la eegaa shaqaalaha uu leeyahay iyo takhasuskooda waa iyaduna indicatorka waxa kale oo la eegaa tirada sariiraha cusbitaalku leeyahay iyo inuu agab leeyahay agabkii dadka ama lagu baarayay ama markay xaaladda adag ku jiraan lagu daryeelayay inuu isna leeyahay waxa kale oo iyaduna muhiima in daawadii iyo wixii loo baahnaa ay yaalaan iyo in wixii kale kaabayay adeegyada ahaa laydhka biyaha iyo security uu isna jiro waxaan oran karaa taasi maanta mustawa wanaagsan maraysaa haddaynu eegno shaqaalaha waxa weeyaan dhakhaatiirta takhasuska leh maanta waxa weeyaan aad bay u badan yihiin waxaan soo qaadan karaa qaliinka dumarka hooyada uurka leh maanta waxa qalaya waxa weeyaan dhalinyaradii lagu tababaray cusbitaalka qaarkood iyo kuwii loo diray dibadda markaa wasaaraddu ka hawl gashay ayaa maanta fuliya qaliinada oo heegan ah 24 saac qaliinada guud iyadana waxa fuliya dhalinyaro dii ka soo baxay jaamacadeena qaar dibadda ku soo takhasusay iyo kuwa kaleba ilaa maanta waxa la sameeyaa qaliinka maskaxda neurosurgery waxa la sameeyaa qaliinka la yiraahdo maxillofacial oo marka haddii burbur dhaco afka iyo wajiga ku dhaco la kabo oo la hagaajiyo yacni waxa weeyaan maanta waxaan oran karaa mashkiladii qalliinada iyo degdegga waanu xalinay wasaarad ahaanna way xamilisay wasaaraddu waana alxamdulilah waan leeyahay waxa yimid shaqaalaha nurseska iyo staafka jooga way ku filan yihiin waana ilaa 1,000 qof ayaa ka shaqo gala cusbitaalka oo shaqaalaha qalabka iyo agabka haddaan ku noqono waxyaabaha ugu muhiimsan ee la yiraahdo life saving waxa ka mid ah oxygen-ta kii u dambeeyay waa kii wasiirku daahfuray oo WHO keentay waa laba mishiin oo capacity wanaagsan kii hore isna jira oo shaqaynaya ku hore isna ayaa noo yaala wax badan baan rajaynaynaa oxygen-tu waa u bilaash dadka markaa soo gala cusbitaalka waxa kale oo bilaasha oo cusbitaalka bilaasha hooyada uurka leh qaliinka loo sameeyaa waa bilaash wasaaradduna hore amarka u bixisay waddanka dhan waxa iyadana muhiima waxyaabo la yiraahdo cusbitaaladu ay ku shaqeeyaan la yiraahdo cost sharing cusbitaaladu waxa maartay wasaaradda siyaasadeeda ku jirta inay wax la soo baxaan oo ilaa xad iswadaan waxaan oran karaa cusbitaalku level xad marka la eego waa sustainable isaga iswaday haddaba waxa ku jira iyadana taa arrin muhiima oo ah qofka markaa jilicsan iyo qofka markaa aan karayn ciidamada dadka cudurrada gaarka qaba dadka maartay markaa naafada ah waxaan siinaa wax kasta ahaado ama qaliin ha ahaado ama shaybaadh ha ahaado ama wax kasta culus ha ahaado free of charge ayaan siinaa runtiina waa loo jajaban yahay haddaan eegno indicatorka kale waxa weeyaan tirada dadka soo siyaarata cusbitaalka haddaan eegno maalin outpatient-ka waxa yimaada tirada timaada waxa laga yaabaa haddaynu calculate garayno inay 60,000 oo qof ay sanadkii soo siyaartaan oo dadka soo galaan hooyooyinka uurka leh markaa qaliinka loo sameeya waxay noqonayaan ilaa 7,000 oo hooyo in loogu adeego cusbitaalka qaliinada la sameeyo waxa weeyaan ilaa 1,500 oo qaliin in la fuliyo sanadkii marka waxaan oran karaa mustawaha cusbitaalku uu haran karaa waxyaabo badan oo aynu weli u baahanahay inaynu develop garaynana way jiraan waa dhismayaasha ka mid ah dhismayaasha ku jira waa kuwii ingiriiskii waxaan rajaynaynaa intaana Soomaaliland inaynu gacmaha is qabsano in aynu fulin doono cusbitaalada kale anigu waan ka soo shaqeeyay waan ogahay wasiirka iyo DG-guna hawl badan bay ka galeen cusbitaaladeena waxaan ogahay ilaa MCJ-da qaarkood inuu maanta yaalo ultrasound awala waxa laga yaabaa ta lagu dhageysanayo hooyada uurka lagu dhageysanayo inaan available ahayn laakiin maanta agabka yaala uu balaaran yahay cusbitaalada soo kordhay way balaaran yihiin waxaan leeyahay wixii su'aal ah insha Allah waan ka jawaabi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.